shirkan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen xuqaashi waxgaradka beeshi Meher Ismaaciil ee Carab Saalax waxa uu ahaa mid lagu taageerayay baaqi suldaanka guud ee beesha Suldaan Cabdiqaadir Cumar Faarax Shabeel kaas oo u diray gudoonka baarlamaanka Soomaaliya baaqaas oo ku saabsanaa beesha in dib loogu soo celiyo kuraasta beesha ay ku leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya. kulanka waxaa goobjoog ahaa suldaanka guud ee beesha Carab Saalax Suldaan Cabdiqaadir Cumar عقال نبضانو وحجرد أقون يهنو يدليرا كواس وككل يميد جود هان ديجانا أي بيش ودكتور بيشا عرب صالح مير إسماعيل أي جبدي شروينها بيشا ومدشن بريا وقص عد الجرا وكسر صاري والمرتيات كسب سنة عندي شركة كراس بيشا أي كل هذا هاي دولة الصومالية وحن نسمع له وأيدينا ونتاجرنا ورقدي سلطان كجود بيشا مهري وأدري حفيزك كرك حسن وتجددنا هاي عبشرة أستينتا كراسة برلمان ودادي هشيس كلجوا هاتن هي شركة عرتا دلك جبوتي تاس أولو قيب صي 4.5 أنت اللي جاري يدور شهل عد يهالغفة أستينتا هذا أي لهاين بقول صدني يشان اسم وسم مرتا وقيبي بيلا هوسياد يضاد عبشرة سلطانكو wuxuu ku xusay deegaanada beesha Meheri oo saddexda kursi si meerta ah loogu qaybiyay inay yihiin Puntland, Jubaland, Galmudug, gobolka Banaadir iyadoo astaynta cusub laga dhigay kow hob haash eber 27 xildhibaan Saciid Xuseen Ciid lana geeyay gobolka Bari labo hob haash 128 xildhibaan Maxamed Cabdi Kaafi Maxamed لنا جاي قبل كمدك هب هاش بقول سقالي لباتن حلبان سعدية ياسين سمتر لنا جاي قبل كنقال يسوق دريمي إن أستيت عصب حنبار سنتهاي خلاف يسقب قبسي كاني كردقال عولاد هرله وأنا مد سلطان كعصي إن قدون كبرلمان كجمهورية الصومالية فدرال كصوماليا وأدعيه sidii hore heshiisku ahaa isagoo cadeeyay in dumarku hal kursi leeyihiin kaasoo meerto ah beela hoosaadyada isagoo suldaanku markale cadeeyay in qoondadii beesha Meheri aqalka sare ay si xaq darro uga maqan tahay qaar kamid ah waxgaradkii nabadoonnadii aqoon-yahanadii iyo dhalinyarada beesha ee ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay inay taageeriyaan baaqi suldaanka guud ee beesha dhanka kale waxa ay dawladda Soomaaliya ugu baaqeen in beesha dib loogu soo celiyo kuraasta annagu waa beesha Meheri wax walba waxa jirta beeshu meelo badan oo Soomaaliya ay degan tahay khaasatan laakiin mugeedu wuxuu degan yahay Puntland kuraastuna markii hore waxa laga xushay Puntland haatana waxa weeye gobollo kale oo baa loo kala dhigay Puntland ka tirsan intaas baan waxaan u sheegaynaa inta ay warqadu cusayso inaanu ku mideysanahay cabashada cod gaaban iyo cod dheerba waxaanu ku leenahay warqadaas ninkii ay gaadho dawladda federaalka ah inay tixgelintiisa iyo siiyaan beelweynta beesha Meheri oo suldaankoodu cabashada uga jeediyay astaynta kuraasta baarlamaanka dawladda federaalka ah sida loo aqalka sare iyo aqalka shacabka labadaba waxaanu codsigaas leenahay inay noo tixgeliyaan haddaanu nahay beesha Meheri inay codsiga iyaga aanu si cod dheer iyo cod gaabanba aanu ka codsanayno inay noo tixgeliyaan haddaanu nahay beeshii Meheri ee lagu yaqaanay nabadda iyo wadajirka lagu yaqaanay ilaa iyo nidaamkaas lagu dhaqmeeyay la helo nidaam bedela oo lagu bedelayo oo ka duwan iyadoo kuraastu ay isku xaq tahay qololba beelahaas beelolba ay waxada maamulato xaqna u leedahay ilaa laga gaarayo nidaam ama maamulfooda ama hab kale oo loo gudbayo la helayo sidii hore nidaamku uu ahaa in uu ku socdo ayaanu doonaynaa suldaanka guud ee beesha Carab Saalax Suldaan Cabdiqaadir Cumar Faarax Shabeel oo soo xiray shirweynaha ayaa sheegay inuu rajaynayo in laga soo jawaabo codsiga beesha cid kasta oo ay khusayso waxaan rajaynayaa inta aynu warqada u diray intay xafiisyadeeda tagtay intii aynu qaabilsiinay iyo intii kale oo tala islaam geli ka dhaaba in ay haddii ilaahay idmo
warqaddaasi muhiimadda ay leedahay iyo beeshu codsigeeda in ay fulinayaan baan rajaynayaa insha allah. axmed maxamed cabdiraxmaan warbaahinta dowladda puntland garowe.